Waafid 25 Media mar walba ka dhiga wehelkaaga iyo walaalkaaga. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada taariikhda magaalo xeebeedka qadiimka ah ee Baraawe. Magaalada Baraawe waa magaalo xeebeed dhacda gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya, waana caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Magaalada Baraawe waxay caan ku tahay wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga. Baraawe oo ah magaalo xeebeed fac weyn waxaa lagu sameyn jiray biyaha saafiga ah ee warshadaysan, koofiyadaha, kabaha, suumanka iyo weliba boorsooyinka xilliyadii hore. Waxay dad badan rumaysan yihiin in magaalada Baraawe xudun ahaan jirtay xilliyadii hore ganacsiga Koonfurta Soomaaliya. Waxay dadkeedu ku caan ahaan jireen shaqada farsamada gacanta sida samaynta dharkii loo aqoon jiray alindiga. Waxaad arkaysaa in magaalada Baraawe ay leedahay ilbaxnimo ilaa iyo waqti fog ah. Marka magaalada Baraawe la soo hadal qaado taariikhda cilmi baarista magaalooyinka, taariikhyahanadu durbadiiba waxay xusuusanayaan qarnigii 16aad dagaalkii iyo duulaankii ay u geysteen ciidamadii Boortaqiiska. Taariikhyahanadu waxay qoraan in sanadkii 1506 koox ka tirsan ciidankii Boortaqiiska ay yimaadeen xeebta magaalada Baraawe, waxayna soo weerareen magaalada Baraawe si ay ula wareegaan gacan ku haynta magaalada. Dad badan ayaa rumaysan inay weerarka ka qayb galeen ilaa iyo ciidan ku dhow 1000 askari oo Boortaqiis ah. Dadyowgii reer Baraawe iyo bulshadii hareeraha magaalada deganeed ayaa isku soo baxay si ay cadowtooyada Boortaqiiska magaalada uga badbaadiyaan. Inkastoo ciidanka Boortaqiiska isticmaalayeen hub xilligaas casri ahaa, haddana bulshadii reer Baraawe way iska caabiyeen ciidankii soo weeraray. Fadlan channelka subscribe rukumo oo gambaleelka saar si ay kugu soo dhacaan waxyaabaha aan halkan soo dhignay.